بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال الله مهدسن مدن وناكسن متيستي إن لغو شكرية مركزته ولا ليال أيانتان وحن جعليساني إنان كهدلنو أما موضوع سقادنو أرنك أيانتان آفادة سعطي أدونك كوهبستي وإلهي كو امتحانيو ومديسا لأغانيو انت صبر كله انت عن صبر كله لغو أغانيو تاسو حنونك أيانتان أدونك فسهاديي أما إبكيسا دودكو إن بدن أي هذا الهيان ولا ليال waxaad moodaa haddii aan nahay Soomaali inaan yaraysanay xanuunka waxa uu yahay qaarba waxay ku leeyihiin xanuunka wax jira maahan qaar waxay ku leeyihiin lacag baa lagu doonayaa qaar waxay ku leeyihiin yaani waa wax la sameystay adduunka sameysteen qaar waxay ku leeyihiin gaalada lagu imtixaani si kastaba ha ahaato marka waxaan jeclaystay in qof kasto muslima oo sida ugu dabaalday karo uga fogaado xanuunka si la sheegay dhaqaatiirtu inay sheegtay ahlu cilmiga u ah arinka waxay noo sheegtay in lagu kala qaadayo wax kasta oo qofka afkiisa dhacaan ka soo baxa salaanta badan lagu kala qaadayo yaani wax aad afkaaga u dhaweysay ama sankaaga u dhaweysay ama dhagtaada u dhaweysay yaani wax kasto sabab u ah qof kale inay ka soo baxaan dhaqaatiirtu waxay leeyihiin 1 mitir iyo bar la kala fogaado waxay kale leeyihiin salaanta la yareeyo waxay kale leeyihiin in yaani bulshada isu imaadankeeda la yareeyo yaani waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin marka qofka muslimka ah inuu ka tigtoonaado sabab kasta ay u dhici lahaydna uu ka fogaado yaani qofka qaar waxay leeyihiin wax loo baahan yahay lama arko lagama iskama celi kara xanuunkan laakiin Allah ka celi kara sax laakiin dadaalkii lagu faray in la imaatid oo wax aad u qoman oo aad u haboon dabcan ilaahay iyo rasuulkiisa salawaatullaahi wa salaamu alayhi cod aqlabiyad ilaahay waxay noogu soo saareen kitaab yaraha qofka muslimkaana u baahan yahay inuu si aad u xil saarto naftiisa iyo aqradiisa yaani uu kitaabka uu aad ugu dhawaado waa sida Soomaali hadii lagu aqriyo waa xirka muslimka ama dhufayska qofka muslimka ah waxaad sameynaysaa kitaabka waxa ka dhigataa saaxiibkaaga koowaad biidni rahmaan sababna wuxuu ku noqonayaa in wax badan oo dhacaya adduunka aafada hadda ka socota inay ka fogaadaan isku day ina kitaabkaas waxa ku jira totalkeeda ducooyinka meesha ku qoran dhamaantood waxa ku qoran 120 ducooyinka adoonka la reereebaynin mid kasta meesha ay leedahay ku hagaaji isku day inaad duco kasta meesheeda ku xifdisid dad baa waxay aqriyaan inta badan dadku waxay aqriyaan ducooyinka صباحا iyo masaa ducooyinka subaxii la aqriyo ducooyinka galabtii la aqriyo dabcan waa ducooyinka aadka ugu fadli badan ee qofka muslimka loo baahan yahay markasta inuu dhufays ka dhigto xanuunadan socdana waa waxa kaliya oo qofka uga dabaalday karo ugu hormari karo uga fogaa karo yaani talaabo kasto qaato kitaabka u qaado ilaahi idankii uu ku xifdinayaa biidni rahmaan kitaabka ducooyin aad u fara badan ku jira ducooyin aan la soo koobi karin oo maanta aan aqriyo ay suuragal ahayn tiradooda daraadood ayaa jira marka ducooyinka masaa iyo sabaaxa iyo ducooyin guri looga baxaayo iyo mid lagu soo galaayo muddo musqusha aad galaysid midda ku jiifanaysid yaani midda cuntada ku cunaysid wax kasta oo duco ah oo meeshaas ku qoran qofka muslimka ah haduu ku digtoonaado oo aqriyo biidni rahmaan is arki maayaan yaani ducooyinka hadii aad maanta dhan aqrisid khayr baad ka faa'iideysaa laakiin war iyo maanta dhan hadaa daldashid oo xumaantaas waa la yiri waa la sheegay uu ku dhacay intaas u gaaray tiradaas u gaaray waxay ku soo kordhinaysa lama arko laakiin hadaa isku daydid talaabo kasto qaadid aad adkaar ku aqrisid oo khayr aad ku aqrisid ilaahi idankii miisaleeysan ilaahina uu ka fogeynaya biidni rahmaan ducooyinka hala badsado oo wax kasto alla loogu dhawaanayo hala sameeyo sadaqaadka hala badsado salaada hala badsado salaatuleelka hala badsado wax kasto alla uu jecel yahay qofka waa inuu u qaada si wanaagsan fadhi ku dirirka yare hadalka badan yare socodka meelaha xun yare dadka isu dhawaashay yare maadaama masaajidada xataa la ka xiray oo in badan masaajidadu xiray yihiin waxa isku dayda inaad gurigaaga joogtid ama aad shaqadaada joogtid
ama meel munaasaba marka aad joogtid kitaabka aad akhrisatid salaada casr marka ka baxid akhriso adkaar masaa salaada subax markii adinkeedu uu dhaco uu dambeeyo adinka uu dambeeyo markuu dhaco ayadana hore ka akhriso waayo hadaad gaartid subaxii 4 saacada sii gaartid waad ka caajisaysaa hadaa habeenkii gaartid oo kale waa ka caajisaysaa intaada seexan ka hor akhriso adkaarta jiifka loogu talagalay wixii maanta kugu soo dhaco dhan way ka masaxaysaa biidni raxmaan inta ayaan jeclaystay inaan la wadaago maadaama warkiyeeni oo batay dhaqaatiirtiina aad noo la yaaban yihiin taxadarka alla sameeyo la leeyahay Soomaalidina leeyahay way isdhigatay xanuunkii kala ma jeclo oo yaani wax kasta meel kasta iska marmaraan socodkooda iska badan hadalkooda iska badan taabashada meel kasta ay taabanayaan iska badan maadaama saasna la leeyahay waxaan jeclaan lahaa anna inaan kitaabkaas ka dhigano saaxiibka koowaad ee jeebka noogu jira waxa jirta xataa hadaad soo degsatid program kitaabada ka soo degsan kartid mobilkaaga adoo xataa kitaabkan culeyskiisa hadaad ka cabsanaysid mobilkaaga culeyskiisa asoo kugu filan yahay ka soo degso program adkaarta ku qoran kuna qor wayna ku soo degaysaa biin raxmaan bariisto ku qor waa soo degsan kartaa wabillahi tawfiiq salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh